dadka shucuurtooda ama dareenkooda ka qarsan dadka kale waa dad badan ay nagu yar balse way jiraan oo dadkaasi macquul maaha inay dhibkooda ama farxaddooda kula wadaagaan xataa haddaad tahay walaalkii ama walaashiis xataa hadday ku jiraan dhibka ugu daran qofna uma soo bandhigaan waxay doonaan inay keligood xalliyaan sidoo kale hadday guushooda ugu weyn gaadhaan inaad wejigooda ka dareento mooye cidna lama wadaagaan iyagoo uga tusaale qaadanaya haddii aad dhibkaagaba sheegi weyday maxay faa'iido leedahay inaad guushada sheegtaa yacni dhibka iyo dheefta ay la kulmaan waxa uga yara ka warhayaa waa qalbigooda haddaba waxaan eegaynaa 6 sifo astaamaha dadkaa ka mid ah 1 waa dad wax iska malaawaasha waxay had iyo jeer u qaataan in dadka kale ay yaqaanaan siday dareemayaan sidaa darteed waxay joojiyaan muujinta dareenkooda had iyo jeer waa kuwa wax kasta ku haysta laabtooda sidaa darteed way adkaan kartaa inay qirtaan qaladaadkooda 2 aaminsanaanta naftooda oo hooseysa waxay had iyo jeer dareemaan in aanay iyagu waxba u qalmin sidaa darteed macna ma laha in naftooda la muujiyo 3 waa dad cabsi ku jirto kuwani waa nooca ka baqa dadka inay isku dhacaan oo mar walba ka fogaada wixii dhib keenaya mar walna waxay ka doortaan inay gorgortamaan xalinta 4 waa dad ka fikira masiibada mararka qaarkood waxay aaminsan yihiin in wax walba ay lumiyeen natiijo ahaanna waxay u malaynayaan inay macno daro tahay in wax badan laga qabto sidoo kale ma aqaanaan sida loo wada xiriiro 5 waa dad xishood saayida leh badanaa waa kuwo xishood badan oo keli iska ah oo wax kasta ka qajila ama ka xishooda xataa waxyaabo iska caadiya ayaa laga yaabaa inay asxaabtooda ku diidaan kaasina waxaa qodobka u dambeeyey ee ka soo muuqda dadka dareenkooda laabta ku haysta